guddiga nabadgelyada iyo difaaca ee golaha wakiilada Somaliland ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland iyo taliyaha ciidamada booliiska. kulankani oo warbaahintu dibad joog ka ahayd oo dhowr saacadood qaatay ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay xildhibaan Cabdilaahi Balaaki iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed. guddiga arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca waxa maanta halkan kulan isxogoraysi ugu yimid wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka oo aanu halkan wada fadhinay ahaana kulamadii caadiga ahaa ee golaha wakiilada iyo xubnaha golaha wasiiradu ay ku kulmi jireen. waxaanu iska wareysanay xaaladda dalku marayo, waxyaabaha u baahan ee wada shaqaynteeda guddiga iyo wasaaradda iyo ciidankaba ah. waxaanu isla afkaranay wixii aanu ku wada hadalay oo dhan halkan oo ay u badnayd arrimaha nabadgelyada iyo xeerar golaha hoo yaala oo ay ka mid yihiin xeerka golayaasha deegaanka iyo gobolada iyo ismaamulka gobolada iyo maamulka gobolada iyo deegaanka iyo xeerka booliska oo uu dhawaan goluhu gudagali doono. arrimihii aanu wada galay oo dhan si fiican baan isku afkaranay, isla qaadanay, waananu ku hambalyeynaa sida wanaagsan ay noo soo ajiibeen hawshaan aan isku afkaranay. waxaan nagu soo marti qaadan inaanu halkan u nimaadno aniga iyo taliyaha ciidamada booliska jamhuuriyadda Somaliland iyo xubno kale oo mas'uuliyiinta wasaaradda oo nagu weheliyay. guddidu waa guddi inta badan shaqooyinka wasaaradda arrimaha guduhu ay mas'uuliyadeedu tahay, iyaguna mas'uuliyiinta xeer dejinta oo ah. marka inta badan waxa naga dhaxaysa wada shaqayn joogto ah. mararka qaarkood xeer iyo arrintaas qora kama wada hadalay arrimaha nabadgelyada ay qayb ka yihiin. waa xildhibaano la soo doortay oo gobolada dalka oo dhan ka kooban. marka sidii uu gudoomiyuhu u sheegay arrimahan iska wareysaneynay iska xog wareysaneynay waxa ka mid ah arrimihii nabadgelyada guud ahaan Somaliland ama dhacdooyin dhacayo la xalilay ha noqoto ama guud ahaan arrimaha nabadgelyada ha noqoto iyo arrinta xeerarka wasaaradda khuseeya xeer number 23 iyo xeerka 63 ee ciidamada booliska oo dhawaantan ay gudagalayaan xeerar hore u jiray oo qaarkoodna kaabisi wax ka bedel laga sameeyay. intaba waan isla garanay, waan isla naaqishnay, si fiican baanu isaga afgaranay. Xamse Cilmi, telefishinka caalamiga ah ee Universal, Hargeysa.